أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalahey waa walaashan amiir aad baan islaamiya aad baan soo dhaweynayaa dhammaantiin walaalahey ardada commenti quruxda bayn soo baxay walaal aad baan mahadsantiin insha allah walaalahey saad ogtiin whatsappka ugu buuxsamay wuuba iga xirmay waxaa kaliya aad walaalahey aad soo geli kartaan haddii ala yiraahdo waxa weeyaan telegramka insha allah telegramka aan hoos idin soo dhigay haddii ala yiraahdo walaalahey waan islaamaya dhammaantiin saawdhantiin soo dhawaad meel baa ka daawanaysaa soo dhawo walaalayaal haddaan ugu cusubtiin bari subscribe garaya casharka beelka taawsi casharka ood ula socotid insha allah dadka cusub aad baan soo dhaweynaya insha allah walaalahey soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada insha allah okay waxaan qaadanayna present perfect ayaan qaadanayna insha allah so present perfect okay let me see we form the present perfect with have and has waxaa present perfect marka isticmaalaysa have and has haddaada ku darin waxa waaye wuxuu iska noqonayaa simple past yuu noqonayaa but have and has haddaa ku dartid maxaa yidhaahdaa oo regular verb uu yahay marka mala kala fahmaayo in uu yahay simple past oo kale laakiin irregular hadduu yahay wuu isbedelaa oo waa la fahmayaa marka insha allah kule inaa fahminaa laga yaaba waxaan dhahay laakiin hoos baa idinku sharxaya insha allah have has plus the past participle okay yeah okay so the past participles often ends in ed examples this is a base word decide walk talk look so decided walked talked looked okay so this is just okay opened decided but many important verbs are irregular okay many open decided but many important verbs are irregular marka erigan irregular marka kan iyo kan laga bixiyo wuxuu noqonayaa regular kan markii lagu darana irregular ayuu noqonaya waxaan caadi ahayn regular waa wax caadiya irregular waa wax aan caadi ahayn okay examples here base word this is base word this is a simple past and this is past participle okay past participle so how past participle uu u shaqeeyaa waxa waaye be awal simple kan soo baranay intaan weya was were did went cut ma fahantay marka ereygan past participle waxa way complete aad buu isu bedelaa marka ereyada past part macnaha oo irregularka noqonayana waa in aad barataa waa inaad xifdisaa sababtoo ah rules aa raacaysid ma jiro ma fahmin waa inaad barataa waa inaad xifdisaa waa inaad maskaxda ku haysaa ma garatay so halkan be was were waa taqaanaa be ereyga be verb be this is maarta singularkiis pastig was soo noqdaa pluralka pastig wuxuu noqdaa were marka past participle muxuu noqdaa been ereyga been uu isu bedelaa mujada been ayuu isu bedelaa okay do maxay noqotaa pastig waa did waa soo aragnay kan laakiin weli ma soo aragn muxuu noqdaa past participle muxuu noqonaa done ayuu isu bedelaa done ereygan go waa bixitaanka went waa pastiga past participle muxuu noqonaa gone saas ayuu isu bedelaa ereyga cut marka waxaa kale oo la yaaba ereyada qaarkood isma bedelaan taas waxaan kule inaad xifdiso waxa loo baahan yahay ereyadaani mar baan maxaan qabanaya intaan geeska soo qabtaan idin wax badan ay idin soo qoraya insha allah ma garatay marka saad u xifdisaan insha allah marka ereygan ujeedo cut isma bedelo akhriskuna waa isku si marka qaarkood dadka ingiriiska soo suubiya waa la yaabaysaa ma garatay marka fiiri cut ereyga isma bedelay kan isma bedelay kan simbalki isma bedelayo pastig isma bedelay past participle isma bedelay marka waxaad danta kugu qasbaysaa inaad ereyadan aad baratid aad qortid aad maskaxda ku haysid insha allah kulligood maaha laakiin inta aad leedahay waad isticmaalaysaa in aad isku soo aruursatid oo meel ku qortid insha allah so now the present perfect so how to form markaan suubinayno sidee baan isugu keennaa sidee baan oo macnaa sharciga aan raaci lahayn waa maxay sharciga raaci waa subjectigii lagu daray half or has plus ina akhriya leeyahay micnaa bagalayba anyway subject plus half has plus past participle, okay? I
plus have plus arrive in Somalia. I have arrived in Somalia. مثلا كان maxaa waaye kan is regular oo waxa waaye oo past oo waxa waaye past participle or regular simple past ma fahmino simple past inshallah. I have arrived in Somalia. Let's just read first, okay? When we use the present perfect, there is a connection with the present. When we use the present perfect, there is a connection with the present. Okay, example. I have lost my key. I have lost my key. Abdi has gone to Somalia. Abdi has gone to Somalia. We often use the present perfect to give new information or to announce a recent happening. We often use the present perfect to give new information or to announce a recent happening. Examples. I've lost my book. I've means I have. I've lost my book. Can you help me look for it? I've lost my book. Can you help me look for it? Did you hear about Abdi? Did you hear about Abdi? He's gone. He has. He's gone to Somalia. He's gone to Somalia. We often use the present perfect with just. We often use the present perfect with just a short time ago. Would you like something to eat? Would you like something to eat? No, thanks. I've just had dinner. I've just had dinner. Would you like something to eat? No, thanks. I've just had dinner. I've just had dinner. Use present perfect with already. Already, this word. Use present perfect with already to say something has happened sooner than expected. Sooner than expected. Use present perfect with already to say something has happened sooner than expected. Okay. Use present perfect with already to say something has happened sooner than expected. Example A and B. Don't forget to feed the cats. Don't forget to feed the cats. Don't forget to feed the cats. I've already fed them. I've already fed them. So them maxaa loo isticmaalo waa plural. Okay? This is past of feed. All right? You can also use the simple past. Yeah? Markuu regular verbku yahay simple past waa noqonaya insha Allah. Let's see. Don't forget to feed the cats. Maxaa lagu jawaabay? I already fed them. See, I've waa laga tag ujeedaa kan waa laga tag. This is present waa laga tag. Maxaa la isticmaala only simple past. Simple past in present markuu yahay ayaa have iyo has soo galaya. Laakiin markuu ahaana markuu uu simple kaliya una present una ahaan ma soo gelinaysa insha Allah. Laakiin waad isticmaali kartaa. I already fed them. marka walaalahay qaaliga ah aan idin soo micnay haddii alla yiraahdo casharka inuu igu dheeraado ma rabin laakiin wuu igu dheeraado insha Allah inoo micnay walaalayaal. All right. Okay. So present perfect. Yeah. Let's talk about our present perfect. Waxaan dhahnay we form the present perfect with have and has. Waxa waaye we form waxaan macnaha aan
u form garayna ama aan u subina the present perfect with half and has marka ereyga present perfect aan isticmaalayno half and has waa in aad isticmaashaa haddii kale present perfect ma ahaanayo plus oo lagu daray the past participle maaragtay wax tegay past participle waa wax tegay markasta wax tegay insha allah marka aanu aragno halkan the past participle often waxaa inta badan loo isticmaalaa often macnaha often ends wuxuu ku dhamaadaa aan ku dhahay in ed ma fahan ed waa like simple past oo kale simple pastiga markuu caadiga ahaa regular markuu leeyahay ed ku dhamaa markuu irregular yahay waa isbedela waxba isma dhaama waxa kaliya ka duwan waxa waaye this half iyo has ayaa ka duwanaanaya ma garata insha allah okay marka uu waxaa lagu yiri caadi ah markuu yahay wuxuu ku dhamaadaa ed waxaa ku macnaha ereyga regularka waxaad ku daraysaa ed markaas that's one way example aan kaa siinayaa base word waa maxay ereyga markuu caadiya markaste base wordki waa kuna decide waxa qofka markuu wax uu aad rabtid in wacdi go-aanka gaar ma aha laakiin decide waxa waaye okay let's say laba gaariyaaso laba baawura aragtay marka labada farxaleed kan aan doortay means decide waxa waa doorasho labadooda let's say ama maxaa okay waxaan ku dhahay shaah iyo qaxwo maxaa rabtaa qaxwo waan rabaa maxaa dooratay you decide to have coffee that means qaxwadii ayaa dalbatay waa sidaa weeyaan waa qofka markuu laba wax u kala dooranayo qaal wax uu doortay that means qofka wuxuu doortay waxaan uu doortay marka decide bastiga wuxuu noqonayaa decided waa doortay decided waa doorasho wixii way soo dhaceen decided walk socod baa walk that means wuu socday qofkii talk waa hadal talk that means wuu hadlay wax taga mogta look waa fiirin lookta muxuu noqonayaa wuu fiiriyay waa ka kuwaan marka ed lagu daraayo oo verbka oo ereyga verbka uu saan yahay muxuu yahay waxa weeyaan ma aha maxaa la ii sheeg waxa weeyaan waa regular either simple past or past participle labadaba waa dhihi kartaa ma kaste insha allah waa simple past sababta ed and this is all regular waxa weeyaan regular wuxuu qaatay ed laakiin markuu yahay irregular ed ma qaataan waa waxa weeyaan wax kale wax si kale asaga iskala bedelaba ama mararka qaarkood sidiisa iskama bedelaan qaara isbedelaan qaar isma bedelaan qaara isagoo sidii isku si u qoran akhriskii iskala bedelmaayo marka walaalayaal isku daya waxa weeye wax ka dhib badan male kuwaan makaste kuwaan irregularka dadka aaday u wareeriyaan makaste insha allah adhoona soomaali ma qabnaa wax saas oo kale ma qabnaa beebiya saas dadka u wareerinayo oo kale insha allah calaa kulli xaal open kuwaan waa hadda soo aragnay but baa lagu yiri laakiin many important kuwa badan oo muhiima oo verbka laga hadlay are irregular macnaa kuwa aad u fara badan oo important oo muhiima oo verbka ah waxay yihiin kuwa aan caadi ahayn waxay yihiin wax aan irregular by means caadi ma aha haddaa erey irregular fahmi weysid kan lee ka qaad kan haddaa ka qaad maxaa aqrinay regular maxaa waaye waa caadi irregular markaa kusoo wuxuu noqonayaa waxaan caadi ahayn example okay halkan let's see this mujada this is what irregular waa kana mujada waxa caadi ma awal muxuu isu bedelay bd ereyga b waa taqaanaan was were muxuu isu bedelaa been isku bedelay ereyga been ayuu isu bedelayaa halka do did past did way mogtahay hay muxuu isku bedelayaa marka irregular markuu yahay past participle sidana isku bedel wuxuu isku bedelayaa done ereyga go muxuu isku bedelay ereyga go qof tegitaanki weeyaan mogtahay duna waa suubiskii mogta oo qofku wuxuu qabanaya haddii kala saartaan ereyga went maho wuu baxay wuu tegay gone that means wuu tegay marka waa saa markuu irregular yahay sidan ayuu isu bedelaa marka kanna waa markuu regular yahay saas isu kala bedel marka ereyadaanayti oo dadka wareeriyay waa inaad hadda halkan fiiri kuwaasoo isma wada bedel kan fiiri cut isku sibaad u akrinaysaa isku sibaad u qoraysaa hadduu yahay base form ama simple ha noqdo ama maxaa dhahay simple past ha noqdo ama past participle ha noqdo sidii iskama ereyga sidiisu ay ahaanaya marka taa waxay ku sheegaysaa in aad si gaara aad u barato erayadan ma garatay si gaara aad u barato insha allah marka aanu aragna bal present perfect imse qaybooda loo kala qaybiya
imise qaybaad u isticmaali karnaa insha allah. So this is how to form. Sidee u form garan subjectigii oo lagu daray half and has. sidaad ogtiin half maxaa isticmaala iyo waxyaalaha pluralka I, you, we, they maxay qaataan half ay qaataan. Hasna waxaa qaata he, she, it waxay qaataa has. Okay, and past participle. Ma garata insha allah. Okay, one example here. I have arrived in Somalia. Aniga Somalia ayaan imaaday. I have arrived. Aniga Somalia ayaan imaaday. Ma waqti dheera waa maya. I have Somalia baan imaaday. Haddaan ku daamin airportka markiina kasoo degtaa laga yaaba. I have arrived Somalia. Somalia waan imaaday. Waan imaaday. Waan joogay laguma dhihiyaa. Waan imaaday. That means markii baad Somalia baad imaaday. Okay. Halkan maxaa dhihi? When we use markaan isticmaalno the present perfect markaan isticmaalno there is waxa ah a connection connection waa wax isku xiran wax ku xiran maarta with the present macnaha markaan isticmaalayno waxa jiro ku xirnaan waqtiga la joogo ma kasta marka wuxuu ku sheegay wixiina waqti dheer aana dhicin ba faahte ama wixii dhacayba oo wali laga kafsano lagu jiro kale ma kasta saas oo kale. Example, I have lost my key. I have lost my key. Okay, I have lost my key. Free baa iga dhumay. Markaan ku dhaho free waa iga dhumogtahay. Free ma haysta gacnaha maan ku hayo waa maya. Free waa iga dhumay wali dhibkiina wuu hayaa. Daamin free waa iga maqan yaho dhibkii wuu hayaa. Marka saas wixii goor fog ma ay dhicin wixii waa ka dhumeen walina waqtiga la joogo dhibkiisi wuu ku haystaa. Wixii wali wuu kugu sii jiraan markasta. Waa sax haddaan kuna free waa iga dhumay markaan kula hadlay wali wixii hawshii wali free waa iga maqan yahay wali wixii presentiga oo haddan aan joogo wali effect ayuu ku leeyahay wixii soo dhacay ma garatay. hadda Abdi has gone to Somalia. Abdi Somalia uu aadan ku dhahay. Abdi Somalia uu aaday waxa kuma dhihin Abdi Somalia jooga kuma dhihin maya. Abdi Somalia uu aaday ama uu ku sii socdaa ama markii airportka deganooyaa ma kaste waa waxa waqti oo wixii oo macnaha dhacay laakiin waqtiga la taagan yahay oo ku leh waqtiga la joogo. Abdi Somalia uu aaday haddaan ku dhaho macnaha ma aha Somalia uu joogaa. Somalia inuu joogo wali ma lagu sheeg. Somalia jooga haddaan ku dhihi lahaa waxaan ku leeyahay Abdi he's in Somalia. Damn Abdi Somalia jooga laakiin Abdi Somalia mu joogo ku dhaho Abdi Somalia uu aaday ama airportku jiduu sii saaran yahay oo Somalia ku sii soo ama waxa laga markii uu ka degaya waa saas oo kale markasta wixii oo dhacay laakiin still waqtiga la joogo wixii dhacay kama ay dhamaanin marka isku lug leeyihiin wali insha Allah. Okay, what else? Halkan we often inta badan use and isticmaalna the present perfect waxaan ereygan present perfect to give inaan siino new information wax cusub or ama to announce in macna aan kaga hadalno a reason happening wax oo macnaha oo mardhow dhacay. Announcing maxaa waay wax macnaha inaan ku dhaho oo wax soo dhac wax aan kaaga hadlo aan kaaga sheego fahmino waa saas oo kale. So we often use inta badan waxaan isticmaalnaa the present perfect to give inaan siino new information wax cusub inaan wixii ka sheegno or to announce in examples. I've lost my book. Can you help me look for it? I've lost my book. Can you help me look for it? Marka halkan haddaa kan la iska baxsho I lost my book wuxuu noqonayaa simple past wuxuu noqonayaa simple lost waa past mogtahay wuxuu marka kan laga baxsho la dhaho I lost my book marka present maxaa ka dhigaya perfect this I've and ereygaana markii maxaa iraadaa uu caadi yahay past participle iyo maxaa la ishay marka kan maadaama irregular uu yahay past participle waa arkaysa laakiin marka uu maxaa iraadaa ed raacayo oo aadan kan arkin wuxuu u ekaan karaa simple past ayuu noqon karaa marka I've lost my book buugeygii ayaa iga dhumay can you help me look for it ma caawin kartaa oo ma ila raadin kartaa wixii soo dhumay
ilaa ay haddadan la joogo lug buu ku leeyahay sababta buuggii soo dhumay ilaa hadda wuu maqan yahay ma aha wixii soo dhacay ma soo dhammaanin ma fahad wixii waa soo dhacay laakiin wixii lugu ku leeyahay waqtiga la joogo buuggay wuu iga maqan yahay haddii buuggii waa kaa dhumay waa hesha haddii la dhihi lahaa daamij muxuu noqon lahaa wax dhacay oo soo dhammaaday noqon lahaa ma garatay marka waxa waye wax dhacay oo soo dhammaaday ma aha marba wixii dhacay waqtiga la joogo ayay la ku leeyihiin insha allah halkan did you hear about cabdi miyaad maqashay macnaha ku saabsan cabdi miyaad maqashay he's gone to Somali ayuu aaday ma aha Soomaaliya joogaa laguma dhihin maya waa sii socdaa macnaha wuu sii socdaa ama markii uu airport ka deganooyaa that means Somali gudaha uma jiro qofka waa saas oo kale maanis wixii dhacay weli waqtiga la joogo ayay ku lug leeyihiin waa saa present waa hadda present hadda perfect that means wax hadda la joogo oo tag that means wixii connection xiriir bay leeyihiin insha allah waa saa we often use the present perfect with just waxaan isticmaala inta badan present perfect with just ereygan just maxaa laga wadaa just waxaa laga wadaa a short time ago waqti yar ka hor short just haddaad tiraad short macnaa waqti yar ka hor weeyaan insha allah example would you like something to eat ma jeclaan lahayd wax aad cuntid maya so wixii uu soo cunay weli waqtiga hadda la joogo lug bay ku leeyihin oo milkaan calooshiis way buuxdaa mii fahanteen walaalayaalow marka xaaftaan ma aragtaa just waxa waaye waqti aana fogeyn maxaa la yidhi would you like something to drink would you like something to eat ma jeclaan lahayd ama marka woodka waxaa loo isticmaalayaa polite ayaan dhadaan soo baranay polite offer ma fahmina polite offer waa soo baran mogta waa qofka aad macnaha ee rabtay inaad siiso oo macnaha wanaag oo kale polite offer sometimes ingiriiska macnaha Soomaaliya culays dhib waa markasta ala kulli xaal inta tabarteed waa isku dayaa insha allah marka would you like ma rabi lahayd something wax to drink aad cuntid I'm sorry why am I like to drink something to eat waxaad cunto ma rabi lahayd marka waa polite waa wax wanaagsan aad qofkii aad rabtay inaad siiso u offer garaysid ma fahamtay marka qofkan b muxuu dhahay no maya thanks mahadsanid I've just had a dinner that means mar dhow baan soo casheeyay mar dhow soo casheeyay laakiin waqtiga la joogo ya lagu kulay sababta calooshiisa way buuxdaa wax ma qaadan karo waa saa wixii soo dhacay hadda ayay waqti ku lug leeyihiin maxaa kale use by the present perfect isticmaal present perfect with already that wax soo dhacay okay to say in la dhaho something wax has happened waxbaa dhacay sooner than expected that means wax dhacay macnaha oo waqtigii ay dhaceen macnaha sooner wixii way soo dhaceen oo wax la filayno kale wixii waa soo dhaceen waxaa la filaya waxaan inay ay macnaha waqtiga dhaceen oo la rabay inay dhacaan maarta way ka soo hormareen bal ayni fahamsiiya had inaan hadalkayga fahmina laga yaaba laakiin example-ka ayaan fahamsiinaa macnaheed okay waxaan ku leeyahay don't forget to feed the cats ha iloobin inaad bisadaha raashin siisid marka anigu ma ogi mogtahay inaan wax siisid waxaan rabaa inaan raashinka bisadaha ii siisid marka maxaa iigu jaabtay I've already fed them mar hore ayaan wax siiyey wixii iyadoo aan expect ahayn ayaa la suubiyey waa saas oo kale magad I've already fed them mar hore aan wax siiyey aniga mar hore waxay ku dhahday ha iloobin bisadaha inaan raashin siisid magad I've already fed them mar hore aan wax siiyey aniga magaratay waa saa taasina waa loo isticmaalaa halkan you can also use intan mujeedaa you can also use the simple past intani waxaa kaloo also isticmaali karta simple past sababta markaan ku dhaan regularna waa loo isticmaali karaa irregular waa loo isticmaali marka regular loo isticmaalay wuxuu noqonayaa simple past waa loo isticmaali karaa oo adoon isticmaalayn maxaa yidhahda the present ma isticmaali only simple past bal sidee u isticmaalnaa arag insha allah waxaan ku dhahay don't forget to feed the cat ha iloobin inaad bisadaha raashin siisid marka maxaa tiri I already fed them
anigu mar hore ayaan waxsi halkan muxuu ahaa I have listen I've the means I have already fed them maxaa ku jira present yaa ku jira I've already fed them anigu mar hore aan waxsi halkan muxuu yahay I already fed them so halfki kuma jiro markuu simple past halfka ma gelin kartid walaalahay qiimaha casharka waxa weeyaan waa adigu sharciyada badan aan ku sii laakiin kuma siinin example ma fahamtay haddaan example wuxuu noqon lahaa inaan hal qayb soo qaato marka berri maalinta haddaan mid kale ku siiyo wixii dhanaa kaa wareela laakiin maadaamaan hadda ku siiyey present perfect oo dhan laysku soo kuusay sharciyadiis dhan hadda farahan kaa saara mogta markaan aan gadaal aan kaa siiyo maxaa idhahdaa marka waxaan qayb inaan qaato ayaan more example kaa siin more example marka waxaa casharadan oo kale markaa qaatid warqad ku qoro meel ku qoro macnaha weliba color u kala yeelo si afarta rule 1 rule 2 rule 3 rule 4 maxay ku kala duwan yihiin marka saas oo kale af Soomaali hoos kaga qor hadaa doon sida u fahmayso hoos kaga qor insha Allah Carabi hadaa taqaan Carabi ku qor Sawaaxili hadaa Sawaaxili ku qor fahmino si aad u faahdo maartay laakiin akhriskiina badiya hadda akhri bari akhri maanta ku xigta akhri kan akhri saayil insha Allah marka walaalahay waxaan idin rajaynayaa in Ilaahay idin fududeeyo ayaan rajaynayaa soo markaan idin baro aad dadka walaalihiina aad gaarsiisaan insha Allah qofka waxa fiican marka wax baratid walaalaha gaarsi waliga qof waxba ka xastay si waxa haysto qofka ku gur sababtoo waxa qalbigeeda ku jirta la dhimo lahayd give it barin ducaa ka helaysa insha Allah waxaan also aad mahadsanid u leeyahay ducadiina qiimaha bad Ilaahay waxaan ka rajaynaa saad iigu duceysan tu kalamida ama ka weyn Ilaahay idin siiyo aad baad u mahadsantiin aad ba ii farax gelisaa walaalayaal khayr baa idin rajaynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته